Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Taariikhdu markay ahayd 936 miilaadiga ayaa magaaladii quruxda badnayd ee Azahra ee u dhisay suldaankii ka talinayay boqortooyadii Andalus. Suldaan Cabdiraxmaankii saddexaad ayaa waxaa ku dhashay mid ka mid ah aqoonyahanadii muslimka ahaa. Aqoonyahankan oo noqon doona aabbaha qalliinka waqtigan la joogo. Abulqaasim Khalaf ibnu Cabbaas Azahrawi oo reer galbeedku yaqaanaan Abulcasiis oo ay ula jeedaan Abulqaasim, waxa uu dhashay taariikhdu markay ahayd 936 miilaadiga kuna beegan 325 hijriga. Waqtigaas oo caalamka islaam ku jiray Islamic Golden Age ama qarniyadii dahabiga ee Islaamka, iyadoo caalamka ay ka talinayeen ilbaxnimadii Islaamku muddo gaadhaysa 6 qarni. Azahrawi waxa uu ku dhashay magaalada Azahra oo 8 kiiloomitir waqooyi galbeed ka xigta caasimadii Andalus ee Qurduba. Tafsir ahaan, Azahrawi waa Carab, waxaana ka soo jeedaa qabiilka Ansaar. Waxa uu inta badan Azahrawi ku noolaa waxna ku bartay caasimadii Qurduba ee Andalus. Azahrawi waxa uu dhakhtar ka ahaa maxkamadii Suldaan Al-Xaakimkii labaad oo ahaa suldaankii ka talinayay dowladda Islaamiga ahayd ee Andalus ee ka dhisnayd dhulka maanta loo yaqaano Spain. Sanadu markay ahayd ku dhowaad 1000 miilaadiga, waxa uu qoray Azahrawi buug wax weyn ka bedeli doona taariikhda caafimaadka, run ahaantiina qaabeyn doona manaahijta caafimaad ee reer Yurub, kana dhigi doona Azahrawi mid ka mid ah haldoorada Islaamka ee qaybta lixaadka ka qaatay cilmiga caafimaadka, gaar ahaan qalliinka. Buuggaas oo la magac baxay At-Tasriif liman cajaza can at-ta'liif. Run ahaantiina buuggani wuxuu ka bedeli doonaa qalliinka reer galbeedka iyo caalamka intiisa kaleba. Isla buuggan uu qoray Azahrawi waxa uu ku soo bandhigay 50 sano oo khibrad caafimaad. Buuggan oo ka kooban 30 mujallad oo qiyaas ahaan gaadhaya 1500 oo page. Dhammaadkii qarnigii 12aad, qoraagii Talyaaniga ahaa ee Gerard Cremona ayaa waxa uu ku turjumay Laatiin. Intaas kadibna waxaa loo sii turjumay luqado badan oo kala duwan oo ay ka mid tahay luqadda Ingiriiska, Faransiiska iyo Hibruuga oo ah luqadda ay ku hadlaan Yuhuuddu. Isla buuggan uu qoray Azahrawi waxaa caalamka laga isticmaalay muddo gaadhaysa 5 qarni, iyadoo qalabkii uu soo saaray laga isticmaalo caalamka ilaa waqtigan aynu joogno. Qalliinadiisii iyo waxyaabuu ikhtiraacay Azahrawi waxaa ka mid ahaa qalliinka isha, dhagaha iyo cunahaba. Waxa uu Azahrawi soo saaray ku dhowaad 200 oo qalabka loo isticmaalo qalliinka. Waxaa kaloo Azahrawi soo bandhigay 325 xanuun, isagoo sharaxaad ka bixiyay waxa sababa iyo daaweyntooda. Waxa uu Azahrawi markii ugu horeysay taariikhda caafimaadka ka hadlay waxna ka sheegay xanuunka loo yaqaano hemophilia, xanuunkaas oo hidde-raac ahaan ilmaha ugu soo gudba, taas oo ilmaha ku sababaysa inuu dhiiggiisu xinjirtu ka yaraato. Aqoonyahankan weyn ee ku xardhan taariikhda caalamul islaam kuna qoran baalasha dahabiga ee haldooradii muslimka ee caalamka soo maray, waxa uu geeriyooday taariikhdu markay ahayd 1013 miilaadiga kuna beegan 402 hijriga. Haddaba daawadayaasha sharafta lahow, muuqaalkeena maantaasu naga eegyahay. Ka hor intaynu hawada isku macsalaameen, haddii aadan weli ka mid noqonin walaalayaasha bartan midaysay, noogu soo biir adoo inoo saaraya channelkan calaamadda subscribe. Mahadsanid, tan iyo muuqaal dambe oo xiise leh. Fii amaanin.